السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان daawadayaal dhegeystayaal kusoo dhawaada barteena barasha baartaasoo aad ugu bartaan waxyaabaha la xiriira cilmiga shaybaarka magacaygu waa Cali Caamir Xasan topiga aan maanta ka hadli doona haddii ilaa yiraahdo wuxuu noqon doonaa laboratory biology qaybtiisa labaad ama part 2 waxaan soo qaadan doonaa 6 steps oo kamid ah part 2 laboratory biology intaan u guda gelin topigeena please waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe inoo saarto channelka barasha baar taasoo dhiirigelin inoo noqon doonto laboratory policy qodobka xigay aan soo qaadan doono maadaama part 1 aan ka soo hadlay marka hore part 2 waxaan xog ku saari doonaa 6 steps oo kamid ah waxyaabihii nooga harsanaa laboratory policy qodobka ugu horeeya wuxuu noqon doonaa chemicalska waa inaan marnaba dawo loo isticmaalay inta aad laboratoryga joogto haddii aan si expression ku sameeyo dabcan chemicalska laboratoryga yaala ee labka ama reagentska la isticmaalo waa inaa marnaba qof patient hadduu ku yimaado ama adiga haddii aad u baahato waa inaadan u isticmaalin as a medicine ama medication qodobka labaad wuxuu noqon doonaa part 2 marnaba inaad u ogolaanin in reagentska ama dawooyinku ay gaaraan maqaarkaaga inay taabtaan maqaarkaaga waa inaad gloves xirataa waa inaad maxaa la dhahaa protective equipmentigii loogu talagalay xirataa sidoo kale qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa kiimikooyinka ama reagentska dabcan laboratoryga yaalo waa in la level gareeyaa oo lagu qoraa waxyaabihii maxaa la dhahaa loogu talagalay sida magacooda iyo date-ka kiimikadan ay soo gashay laboratoryga dabcan laboratory substancega waxyaabaha laboratoryga yaala dhammaantood waa inay as labeled ahaadaan kadibna positionka loogu talagalay ay ku jiraan qodobka afaraad wuxuu noqon doonaa laboratory policy inta aadan maxaa la dhahaa kiimikada iska saarin ama inta aadan kiimikada kasoo bixin bottleka waa in aad laba mar akhrisaa labelka waa inaad laba mar akhrisaa labelka soo kiimikada markii aad isticmaalayso oo dhalada ama meesha ay ku jirto ama maxaa la dhahaa qaanada ay ku jirto dabcan aad ka soo bixinayso waa inaad mar ama labo ku celisaa inta aadan isticmaalin si aad iskaga hubiso because waxaad sameyn kartaa wax la yiraahdo misconnection oo idin dhaxeeyo adiga iyo qofka ama aad u dhiibayso ama qofka aad siinayso ama waxyaabaha aad u isticmaalayso so inahaas ayaad laga hortagayaa inta aadan maxaa la dhahaa kiimikada isticmaalin waa inaad laba mar akhrisaa dabcan laboratory policy part 2 qodobka shanaad wuxuu noqon doonaa haddii ilaah yiraahdo marnaba inaadan u qaadan kiimikada ama dhalada ay kiimikada ku jirto meesha shaqada waa inaad marnaba u qaadan macnaha meesha shaqada waxaan ka wadaa fieldigan laboratoryga ee aad ku jirto fieldi ka duwan ama aan ahayn haddii aad u socotid waa inaadan u qaadan example haddii midwiferyga sectionkiisa aad u socotid ama nurse section ama physiotherapy section aad u socotid waa inaadan laboratoryga ka qaadin bottleka kiimikada ay ku jirto ama reagentiga ama flaskiska ama tubeska dhammaantood substancega aad u isticmaalayso reagent inaad ku shubato ama chemicals aad ku shubato waa inaadan fieldiga laboratory marnaba ka bixin sidoo kale chemicalska waa inaan la dhigin markii la isticmaalo original containerkooda kadib waa inaan la isticmaalin oo dib loogu celiyaa original containerkooda so waxaan ka wadaa almuhim kiimikada waa in markii aad isticmaasho aad original containerkooda ku celiso oo aadan dib u isticmaalin haddii aadan markaas u baahnayn waa inaan dib u isticmaalin haddii yacni kiimika ay tahay disposal u baahan oo maxaa la dhahaa one time use ah ama haddii kiimiko ayadoon fridge la gelin la isticmaali karin ay tahay waa inaad isticmaalin oo original baggi ama original containerkii aad dib ugu celisaa dabcan laboratory policy way fara badan tahay waxyaabaha la xiriiro oo maxaa la dhahaa markii la define gareynayo ama classification ama ablaableyn guud lagu sameynayo way fara badan tahay laakiin lixdaas step ayaa haddii ilaahay laga helo aan maxaa la dhahaa maanta kusoo koobaynaa laboratory policy
qodobka ugu horeeya maanta aan ka hadalno wuxuu yahay haddii aan briefly usoo kormo waa inaa kiimikada la akhriyaa oo aan la isticmaalin inta aadan adeegsan ka hor. labo, inaad u ogolaanin maqaarkaagu inay taabato. 3, kiimikooyinka waa in magacooda lagu qoraa, date-kana lagu qoraa markii lasoo register gareynayay, date-kii taariikhdu ahayd iyo kiimikadii magaceeda waa inaad ku qortaa. waa in kiimikada marka intaad isticmaalin ka hor 2 mar aad akhrisaa. qodobka 4 waa in kiimikada banaanka aadan u qaadan oo sectionka aad ka shaqeynayso labka section ka duwan aad u qaadan. dabcan qodobka 5 weeyaan sidoo kale in kiimikooyinka aan la isticmaalin markii aad isticmaasho kadib, in mar kale dib aadan u isticmaalin adigoo original containerkooda aan ku ridin, ama hadday kiimika disposal tahay one time use ay tahay, ama reagent fridge u baahan in la isticmaalo ay tahay, waa inaad adigoo fridge-kii loogu talagalay temperature-kiisa lahay adigoon gelin, waa inaadan dib u isticmaalin. inaas ayaan kusoo koobayaa cashirkeeni ama topicii ku saabsanaa laboratory policy part 2. haddii ilaah yiraahdo please waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe inoo saarto channelka inta aadan ka bixin. haddii aad daawatay waa ku mahadsan tahay la socoshadaada. aad iyo aad 100% waan idin mahad celinayaa dhammaan asxaabta ku xiran channelka Barashay Bar.